arinta GMO waa arin aad xasaas u ah waaye adduunka waxaa ka jiro macnaa laba camp ama laba field qaarna ay support gareynayaan ama ay raacsan yihiin GMO inuusan wax dhibaato ah keeni karin iyo qaarna waxaa jiro si aad iyo aad ay ugu soo horjeedaan marka labada field waxay kala yihiin dadka ka soo macnaa dadka raacsan oo GMO-da inuusan waxba dhimi karin waxay u badan yihiin dadka culimada oo macnaa GMO-da ku takhasusay ama aqoonta u leh ama ay leeyihiin mataqaanaa waxaan intaas sanaan baaraynay wax dhibaataana kamana arkin wax mashaakilaad ka jirana ma laha laakiin dhinacan macnaa in fact waxay u badan yihiin yani dadka ku nool Mareykanka ama Canada ama South Africa dadka hadda aad u isticmaala laakiin dhinac kale waxaa jiro oo activists ama dad waxaa jiro oo yani aan rabin innovationka ama waxyaabaha cusub markii ay imaadaan oo si aad ay ugu soo horjeestaan sababtan waxa waaye wax kale ma aha inay ogaadaan maxaa dhib ah ka imaan kara arrintan taasna waa wax caadi ah sababta waxa waaye technology oo cusub markuu imaado markasto waxa waaye in laga taxadiro waa wax meesha ku jira dhibka ugu weyn hadda waxa waaye oo dadka haysta dadka ka soo horjeeda ka soo qaad waxay ku leeyihiin wax fiican maaha laakiin haddaa weydiisid dhahdid waa maxay GMO-da what is the definition of GMO ma ku sheegi karaan waxay isku qaldayaan GMO iyo hybrid isku qaldayaan waxay isku qaldayaan GMO iyo organic food ay isku qaldayaan waxay isku qaldayaan GMO iyo company-ga sameeyay GMO ay isku qaldayaan marka waxyaabo badan oo la isku qaldaya ayaa jiro waxaa jiro information badan ayaa search qofka u sameyn karaa literatures waxaa jiro oo yani oo aad mataqaanaa loo tixgeliyo journalists waxaa jiro oo ka hadla GMO-da oo qadarin leh marka sourcekaas ayaa qofka u aadi karaa uu ka raadin karaa marka wixii wanaag iyo wixii xumaan uu leeyahay meeshu ka soo ogaan karaa laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu ogaado what is GMO suu u qanciyo nafsadiisii inay waxaan wax xun yihiin ama inay wax fiican yihiin